dimuqraadiga ee Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad Barre waqti balaaran madaxweynaha iyo waqtigiisu waxa ay kaga qayb galeen magaalada Djibouti shirka koowaad ee wadamada xubnaha ka ururka la dagaalanka abaaraha iyo ka hortagga dhibaatooyinka ganahooda qabsadaan maslaxadooda adduuniya aakhirada qofku dantiisa isaga qabsada nina uma qabto fikradda dantayda cid kale ay qabato inay iloobaan oo tooda u jeestaan oo isku aaminsan dadkooda iyo dalkooda diyuuradaha ee magaalada Berbera ayayna diyaaradaasi islaax qadar saacad iyo barka bacdiya ay ku degtay isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad Barre halkaasi ay ku soo dhaweeyeen madaxda gobolka Waqooyi Galbeed waxaana halkaasi ubax qoorta u suray ubaxa kacaanka Oktoobar ee degmada Berbera oo iyadu ka tirsan gobolkaasi Waqooyi Galbeed iyadoo halkaasi uu ku soo dhaweeyay Jale Xildhibaan محمد حاشي قاني oo ah taliyaha qaybta 26aad ee xooga dalka Soomaaliyeed dadweyne aad u tiro badan ay xareeraha gagada diyuuradaha ay safnaan iyagoo ololaya caleemo qoyan iyo calanka jamhuuriyadda dimuqraadiga madaxweynayaasha ka qayb galaya shirkaasi koowaad ee ururka IGAD ee magaalada Djibouti caasimada jamhuuriyadda Djibouti lagu qatay ayaa maalintii ay bishu hayd 15 galabnimadeedii iyagoo waxa la keenay qasriga ummadda ee ku yaala magaalada Djibouti oo ah guri aad iyo aad u qurux badan iyaga oo shirku oo habeenimadaas halka uga furmayay General Suwared madaxweynaha wadankaasi Suudaan oo imika adaawanaysiina ayaa isagu ugu soo horeeyay madaxweynayaashii shirkaasi ka soo qayb galay iyada oo madaxweyne kasta guriga uu degan yahay ay soo kacayeen cutubyo ciidamada ka tirsan iyo ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa nabadgelyada wadooyinka ee traafiga iyaga oo halkaasi la keeniyay shirkaasi uga bilowdo qasriga ummadda ee magaalada Djibouti ku yaala iyada oo aad ka wada warqabtiin sidii horaba wararka idaacadda ama telefishinka aan idinka soo baahinay iyo jaraa'idkaba inay ka qayb galayeen shirkaasi 6 madaxweyne oo iyagu ku biroobay ururkaasi IGAD oo ka tirsan Afrikada bari iyo isla markaasi madaxweynaha wadanka Senegal oo isna marti ahaan halkaas uga soo qayb galay gudoomiyaha ururka midnimada Afrika ee sanadkan imika aynu ku jirno waxaana isla markaasi hal iyagu u soo degaya madaxweynayaashii shirkaasi iyagu ka soo qayb galayay iyadoo baabuurtii martida ee loogu talagalay la keenayo kalfadhiga daba koowaad ee wadamada xubnaha ka ururka la dagaalanka abaaraha iyo ka hortagga dhibaatooyinka dabiiciga ah ayaa habeenkii bishu ay 15 ahayd 8 fiidnimo si rasmi ah uga furnay guriga ummadda ee magaalada Djibouti
bare waxa uu soo kormeeray oo hal loo tusay dhammaanba qaybaha ay ka kooban tahay xaruntaasi cusub ee isgaarsiinta iyada oo ay la socdaan dhammaanba waftigii ballaadhna ee uu hogaaminayay madaxweynuhu waxaanu furay isla maalintaasi laynka isku xidha jamhuuriyadda Jabuuti iyo magaalada Hargeysa magaala madaxda gobolkaasi waqooyi galbeed sida idinkuba aad u daawanaysiin oo isagu ugu horeeyay qof ku xaleeto ay booqdeen degmada Carta magaala madaxdeeda ee Carta la yiraahdo magaalada Carta waxa weeyaan oo ay ku taala dhul buureed iyagu ku dhow magaalada Jabuuti waxaana u jirtaa ilaa iyo 42 kilomitir waxa ay badda ka sareysaa buurtaasi magaalada Carta ay ku taala 700 oo dhudhun ay badda ka sareysaa iyada oo hawadeedu ay aad iyo aad u qabowdahay oo iyo labada dawladoodba madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya meel kasta oo tagaba sixiisa iyo kalgacal ayaa loogu soo dhaweeyay marmar ay dabaaldegay laakiin waxaa markaynu aad fidada ugu jirnay dabaaldegii dhacay aad buu u ballaaran laakiin been buu sheegay garmaantu run buu ahaa iyada dadkaa ka garanay aad iyo aad baan idinku mahadinayaa saaxiibada wada soconada xilka ama kormeerka ku wada jirnay magacooda iyo qaranka Soomaaliyeed jiraba ugu qabtaan waxyaalaha ay u baahan yihiin oo aan u jecel lagu joogo maanta waxa weeyaan wada jir ahaan oo inaga baahday muddo inagoo meelo baas oo kala duwan kusii jira